العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أتباع السلام من الماتي وزير حسن قافالي وزير عافمات أيام ماتي نعسومي شركة واحدة إنه يسوي الصاحب بلا شواني يقول سوي الصاحب ضيعين. هذه أتباع السلامنا مدحتك لدول حزبية مدحتك لدول حكومة وبالجوجين عندما أبا تتعادي كوبي مع بعض روحانتي لو مسوا كوبي كرو كلمة سولويتينا مركاتين جدك قربها كيمي أساس حزبية كلمية يدلالك حزبية كلمية يقولي حزبية كلمية أنت بقول سلطانا روحانتي مسوا كوبي كرو حوجا قال بو حزبية كلمية وياهي guushiisa inay lafdhabar ka yihiin dadka qurba-joogga dibadda jooga dhammaanba goobaha kala duwan hadday tahay UK hadday tahay Scandinavian-ka hadday tahay Maraykan hadday tahay meel kasta oo qurbaheena wadamada carabta xisbiga kulmiye asaaskiisa ilaa guulaha kala dambeeyay u gaaray dadka qurbaha jooga maalkooday ku bixinayeen xoogooday ku bixiyeen caqligooday ku bixiyeen taladooday ku bixiyeen asaaskiisay lahaayeen way ku ammaanay yihiin waana idin ka mahadnaqaynaa waxaanu ognahay waanu ka mahadnaqaynaa kulmiye oo ku abtirsada ururkii SNM ee dalkan xoreeyay ku abtirsada isagana asaaskiisu dibadda u ahaa waad ogeydeen halkii laga dhawaaqay ahayd London waad ogeydeen xubnihii ugu horreeyay ee wadamada carabta joogay ee halkaa intay ka tegay UK in badan oo ka mid haweengeedoodan allah u naxariisto dalka iyaga xoreeyay xoolihii Sacuudi Arabiya wadamada carabta laga shaqeynayay caqligii aqoontii taale wadamada dibadda ee UK ugu horeyso ayaa SNM lagu aasaasay iyo xoogii iyo saraakiishii naftooda horay ee waddanka intay joogeen baxay ee dalkooda inay u halgamaan u guntaday ee u qaatay wariga say dalkooda iyo dadkooda u xoreeyeen guushaasi ururkii SNM baa gaadhay oo dowladnimadeena dhaliyay xisbiga kulmiye halkaasuu ku abtirsada gudoomiyihiisii ugu horreeyey mujaahidkii weynaa madaxweynihii ugu horreeyay xisbiga kulmiye mudane axmed maxamed maxamuud silaahi halkaasuu ka soo jeeday sida oo kale madaxweynaheena maanta mudane muuse bixi gudoomiyaha xisbiga ahna wasiirka wasaaradda daakhiliga waa dadkii dalkan usoo halgamay iminkana halgankii oo aan dhammaan oo ictiraafkii waddanka iyo aqoonsiga qaadintiisii ayna ku jirto dadka u haya calanka weyn walaalayaal dadkiina dibadda ka yimid oo aanaan soo koobi karin khayrka iyo wanaagga qalbigaygeedii ku jira soomaaliga markaynu ku hadlayno soo dhowaada qalbi furan laab furan maskax furan dadina jecel intaasi waxaa laga yaabaa afka soomaaliga oo hadlaygaga badiyaa haddaan afka carabiga ku sheegaysa dhahdo oo ah afkii qur-aanka marka dadka carabtu yani afka carabiga wax lagu soo dhaweynayo yaa marxaban bima wasal على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل ويا فسيح المقعد معاني بطل يا مرحبا بما وصل يعني سودو قفكي نوي يا مرحبا بما وصل على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل ويا فسيح المقعد والله ليال سودو هذا قلب فرق سودو هذا وحين قلينا ترتكاين قلينا دوت كذا مدحوينها ee muddada 3 bilood ee ka harsan tahay ma aha xisbiga kulmiye mid ku cusub horay u soo galay tartanna adag oo qadaan oo si dirqi lagu kala badiyay kii 2003 ayaa ka mid ahaa kuwa kale inuu soo galay 2010 ku kale inuu soo galay 2017 maantana 2024 tartan madaxweyne ayaynu mar kale galaynaa inagoo ilaahay isku xidhaynaa waxaynu rajaynaynaa oo ilaahay ka baryaynaa inaynu guuleysano soo salaama mar walba inagu ilaahay bay isku xidhayna guusha ilaahay bahaya cidda ilaahay siyaa guulaysanaysa insha allah tacaala waynu guulaysanaynaa waxaynu ku guulaysanaynaa isku xidhka ilaahay iyo isku xidhka dadkeena ayaynu codka ka doonaynaa walaalayaal waxaad ogtihiin maanta kaambeynkaa weli aan bilaabnay laakiin axsaabta iyo dadka ururada madaxda ka ay hadlayaan maalin walba dhagaha dadka Soomaaliland waxa lagu ridaa oo ay maqlaan hadalla naxli iyo xumaan iyo kala qoqob iyo isku dir iyo dagaal ka turjumaya oo wax laga xumaado dad dalkan xilal ka soo qabtay waaweyn imikana xilal kaloo ka sii waaweyn doonaya inay naxli iyo xumaan ay dadka ku kala beeraan
aada ugu fiirsada to aanan jeclayn cidna inaan magac daro oo allabiibu yafham bilishaar qofka caqliga leh u fahmayo bal hadda kaambeynada socda aada u eega ee habka qabaliga dadkeenu somaliland say odhan tahay waa kaas keliya waa guri keliya kursiga qof baa doonaya qabiil ma doonayo qof baa ku fadhiisanaya maanta qof baa ku fadhiya shalay mid baa ku fadhiyay berri mid baa qof baa ku fadhiisanaya maxaa sababaya tii qof kursiga doonayo inuu qofkani qabaa'il la caayo qabaa'il dan u caayo wuxuu doono sheego ama uu dan siduu doono la hadlo waxaa keenaya qofkaasi wuxuu ku ololeeyuu laayahay isagaa is-iibin karra isagaa wuxuu sheegtala isagaa wuxuu yahay sheegi karra marka waa inuu qabaa'il la caaya qabaa'il la soo dhawaystaa laakiin somaliland waa qoys keliya dad la kala qoqobo maaha waxaan maqlay youtube-ka habeendow waxaan ka akhriyay nin ka hadlaya hodheelada somaliland lix hodheel buu soo qaatay hodheelada caynkaasa waxaasaa ka dhacay hodheelada caynkaasa waxaasaa ka dhacay hodheelana casiirkaa lagu cabaayo maxayga iyo maxayga ayaa lagu qaybiyaa buuri subxaan allah waa la yaaba yani wuxuu hodheelada laba hodheel buu sheego labadaa hodheel doorashu ma laga hadlaa doorashaha la qabtaa laga hadla laba hodheelo kalu soo qaado hub baa lagaga hadlaa dalka lagu difaaco laba hodheelo kalu soo qaado casiirkaa lagu cabaabuyo waaya bal hadda hadalkaasi qof mas-uul markuu soo hadlo maxaad dareemaysaa waa hargeysa gudaheeda meesha laga hadlaya hargeysa wey hodheeladana hargeysa waa hodheelo loo furay dadka furtay cid u buuxisay balaayihiinba oo wax ka cunta walaalayaal hadallada naxliga ee dagaalka huwan ee xumaha huwan ee huwan dadka in loo qaybiyo qoysas iyo reer ama dadka laga dhigo dad la addoonsanaya iyo dad wax addoonsanaya waa ceeb somaliland waa aya cidda la addoonsada waa aya si cidda wax addoonsanaysa subxaan allah ma jirto markaa sawirkaa markaad bixiso dad baa dabaqada hoose ku nool dad dabaqada sare ku nool yihiin sow umaad gafin dadkaagii iyo dalkaagii sow adigu ismaad ceebay waxaan leeyahay hadalladaasi cidda tiri bay ku tilmaaman yihiin oy ku sifaysan yihiin dadka reer somalilandna dad codka sidaa ku bixinaya ma codka waxay dadku ku bixinayaan waa kan sidan aan ahayn sidaa codka igu sii marka dadka codka waxaad kaga doonta weydo cay inay ku bixiyaan dagaal inay ku bixiyaan xuma inay ku bixiyaan iyo qasab iyo sanduuqo uma baahna in la dhigo somaliland way burburi waana xilmi waana la kala tegi haddii aniga lay doonan waayo halkii hadday joogto maxaad u malaynaysaa kulmiye wuxuu leeyahay oo shacbigiisa u sheegaya oo qurbajoogkiisa u sheegaya wuxuu diyaar u yahay doorasho xora oo xalaala haddii kulmiye laga badiyo si walaaltinimoa ayuu ku hadaynaya oo ku bixinaya oo cidda ku guulaysata ugu hambalyeynaya sidii 80 codba ugu hambalyeeyey haddiise laga badi waayo oo isagu badiyo diinna wax lagaga qaadi maayo xumaanna wax lagaga qaadi maayo isagaa joogaya kursigaasi cod unbaa lagu fadhiistaa kulmiye cod unbuu kusii fadhiyaya cod unbaana lagaga qaadi kara qof bataaniyad hagin qofka dadka kala qoqobaya ha ogaado inaanu digdig iyo xumaan iyo xoog waxba ku qaadaynin codka dadka wax lagu yahay guushuna garoonkay taallaa garoonkana dadkaa ka codaynaya dadkuna caqli bay leeyihiin wayna garanayaan ciday codkooda siinayaan aad iyo aad baad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu